xalinta khilaafaadka doorashada ee federaalka Soomaaliya ayaa shaaciyay in la hakiyay ku dhawaaqistii natiijada ee kursiga lambarkiisu yahay 067 oo ku soo baxay Yaasiin Faray. kursigani waxaa khamiistii ku soo baxay agaasimaha kumeel gaadhka ah ee NISA Yaasiin Faray kadib doorasho oo booq badani u ka dhacday Dhuusamareeb. warqad ka soo baxday guddiga xalinta khilaafaadka isla markaasna la socodsiiyey guddiga doorashada ee heer federaal ayaa waxaa lagu sheegay in guddigu ay gaadhay dacwad ka dhalan kursiga oo ay soo gudbiyeen Axmed Cabdikariin Cali oo musharax u ahaa iyo sidoo kale nabadoon Cali Xasan Cali Jeesto. kursigani ee lambarkiisu yahay 67 waxaa hareereeyey dood badani oo ka timi markii guddiga doorashada ee Galmudug gaar ahaan madaxtooyada ee Galmudug ay u xidheen kursigaasi inuu u tartamo Yaasiin Faray. guddiga xalinta khilaafaadka oo la aaminsan yahay in si toosa xidhiidh uu la leeyahay madaxtooyada Soomaaliya ee Villa Soomaaliya ayaa lagu tilmaamay in hakinta kursigani aysan ahayn mid daacada iyadoo la og yahay habkii loo maray kursiga buuq uu ka dhashay ee ra'iisul wasaare ku-xigeenka Mahdi Maxamed Guuleed. hase yeeshee tallaabadani uu qaaday guddiga xalinta khilaafaadka ayaa lagu tilmaamay inuu doonayo inuu ku damiyo buuqa ka taagan kursigaasi. in warka ku saabsan hakinta natiijada doorashada ee kursiga lagu damiyo xiisadda ka dhalatay iyo qeeladhaanta hareeraysay ereyada loo adeegsaday tallaabadani uu qaaday guddiga ee ah hakinta kursiga ayaa ujeedkiisu yahay in laga dhigo in Yaasiin Faray aanu weli kursigaasi aan loo shaacin, taas oo dadka aan fahansanayn sida guddigu ay u shaqeeyaan maalmo ku mashquuli doonaan sugitaanka natiijada baaritaanka ee guddiga, sidoo kalena dabin karta hadalhaynta. sidoo kale qorshaha labaad ayaa ah in guddigu uu isu muujiyo mid ka shaqeeya in uu diyaar u yahay inuu xaliyo cabashooyinka ka yimaada arrimaha doorashada, balse waxaa la aaminsan yahay in guddigu ay ku dhawaaqi doonaan in baaritaan lagu sameeyey kursigaasi oo uu ku guulaystay Yaasiin Faray oo aysan jirin wax qalada oo dhacay. warbixinada kalena wadahadallo xasaasi ah oo socda Iiraan iyo Maraykanka oo looga dan leeyahay in laga hortago burburka ku yimi dib ugu soo laabashada quudaha ee heshiiska nukliyeerka ee Iiraan ayaa ka furmaya Vienna. saraakiisha ayaa ka wada hadli doona suurtagalnimada ku soo laabashada Maraykanka ee heshiiskii 2015 kaas oo xadidayay dhaqdhaqaaqa nukliyeerka ee Iiraan, taa beddelkeedana cunaqabataynta looga qaadayay dalka Iiraan ayaa jabisay ballamihii muhiimka ahaa tan iyo markii uu xilkaasi ka degay madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump oo cunaqabatayn dheeri ah ku soo rogay dalka Iiraan. Joe Biden wuxuu diyaar u yahay in kor uu qaado haddii Iiraan ay ka noqoto jabinta xeerkaasi, laakiin Iiraan waxay doonaysaa in Maraykanku uu qaado tallaabada ugu horeysa. diblomaasiyadda reer galbeedka ayaa ka digay in wakhtigu uu dhammaanayo ee wadaxaajoodka sababtoo ah horumar la taaban karo Iiraan kama samayn barnaamijkeeda, waxayna bilowday tayeynta ee uraniumkeeda, taas oo ah dariiqyada hortaagan in la gaadho heshiis dhammaystiran. Iiraan dhankeeda waxay ku adkaysanaysaa in barnaamijka nukliyeerka uu gebi ahaanba yahay mid nabadeed. wadahadallada u dhexeeya Iiraan iyo 5 waddan ee quudaha ayaa qayb ka ah qorshaha sida rasmiga ah loogu yaqaano JCPOA. Shiinaha, Faransiiska, Jarmalka, Ruushya iyo Britain ayaa qayb ka ah kuwa oo bilaabay caasimadda Australia ee Vienna bishii Abriil wadahadallo, iyadoo wakiilada Maraykanka ay si dadbani uga qayb galeen. Ibrahim Raisi oo ah nin meel adag oo aad u dhaliila reer galbeedka ayaa ku guulaystay doorashada madaxtinimada ee Iiraan oo bedelay Xasan Rouhani oo wadaxaajoodka heshiiskani ee maamulkii Obama inta badani kaga dhabeeyey. Raisi ayaa ballan qaaday ka hor inta uusan xafiiska la wareegin bishii Agoosto in uusan ogolaan doonin wadahadalladu inay sii dheeraadaan, mana uusan aqbalin ku laabashada heshiiskaasi. wasaaradda arrimaha dibadda ee Iiraan ayaa sheegtay inay rabaan Maraykanka qirashada dembiga iyo in si degdeg ah looga qaado dhammaan cunaqabataynada Maraykanku uu saaray, iyo damaanad qaad ah in madaxweynaha Maraykanka mustaqbalka aanu mar kale uusan heshiiskaasi ka bixi doonin. ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha Maraykanka Joe Biden
ee u qaabilsan iiraan ayaa sheegay in maraykanka uu diyaar u yahay in uu ka noqdo dhammaan tallaabooyinka lagama maarmaanka ah si dib loogu laabto fulinta heshiiska oo ay ku jiraan ka qaadista cunaqabataynada ee maamulkii trump uu saaray iiraan. laakiin ergeyga maraykanku wuxuu sidoo kale uga digay iiraan inaysan ka dhamayn fulinta ballanqaadyadeedii. muhiimadda ugu weyn ee heshiiskani JCPOA ayaa ahayd soo saarista iiraan ee uraniumka, taas oo si weyn loogu isticmaalo shidaalka iyo warshadaha tamarta ee nukliyeerka, laakiin sidoo kale loo isticmaali karo hubka nukliyeerka. iiraan waxay oggolaatay in ay xadido cadadka ay kaydin karto ee tirada iyo noocyada mashiinada ee centrifuge ee loo isticmaali karo in lagu fuliyo kobcinta iyo meelaha ay ka dhici karto. waxay bilowday in si tartiib ah ay u jabiso xanibadahaasi 2019 iyadoo ka argoosanaysa cunaqabatayntii dib ugu soo celiyey maamulkii Trump. iiraan waxay hadda diyaarsatay kayd uranium ah oo diyaar ah kana badan intii loo oggolaa. waxaa kale oo ay rakibtay boqolaal qalab kale ah macdanada iyo curiyaasha, waxaana iiraan ay qaaday tallaabooyin lagu soo saarayo birta uraniumka iyadoo lasii tarminayo, taas oo ah qayb muhiim u ah helitaanka bombooyinka nukliyeerka. kormeerayaasha ka socda wakaaladda tamarta nukliyeerka ee dunida iyo sidoo kale si weyn loo dhimay gelitaanka ay ku geli lahaayeen xarumaha nukliyeerka ee iiraan.